أفكر حلا دايا إندا بلد وناقاقا دلدل الكنفوت كاقا بدمكا لليقا أفكر حلا دايا إندا بلد وناقاقا دلدل الكنفوت كاقا بدمكا waxaana wanaagsan idilhaantiba meel walba ay naga dhageysanaysaan kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad farxadii muruga hareysay oo ah qisad dhab ah oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed حبيبي كلا ما تجرى داري كلا ما تجرى معان كلا ما تجرى my love كلا ما waxayna toddobaadkan inoogu bilaabanaysaa qaybta saddexaad sida qadar oo aan weli ka qoonsan in saaxiibteed ay ku qanciso in deganaan oo kaliya ay wax ku sixi karaan ayaana tiri qaali istaji marka hore abaayo Yusuf hadda ayaan la hadlayaa aniga waxaana u sheegayaa runta iyo sida ay wax u jiraan iyo sababta qaladka keentay qaali cara ay u qabtay dhalinyaradii xaafadda oo ku wareeriday telefoonka ayayna kala dul dhacday ee hadaladii ay kugu oranaysay ma ahayn kuwa ay kugu tala gashay inay kugu dhahdo ama ay ku qoorto qalada ka fahmin ayaana ku oranaya ay ku tiri qadar qaali balse qaali ayaa iyadu qabta in sidan oo kaliya uusan Yusuf uga qancaynin iyadoo mar walba soo xusuusanaysa hadaladeedii kulkululaa ayay saaxiibteed qadar ku tiri warheedhe anigaba haddii sidaas la igu oran lahaa way igu adkaan lahayd sida aan mar kale aan u aamino qofkaasi Yusufna waa aniga oo kale marka maxaa nala gudboon qadar ayaana hadalkii ka daftay qaali kuna tiri sug qaali waxaas oo dhan haynoo dambeeyaane hadda dukaanka nagu dhagan ayaan kaarka hadalka nooga soo gadayaa waana qasab in aan la hadalno oo runta sheegno hayo orod waan la hadlaynaahay aniga se maxaan ku dhahaane awood aan Yusuf kula hadlo ma hayo oo ilimadan cishan la ahay qadaro ayaana mar kale tiri sug aan kaarka soo gaday qadaro ayaana iyadoo socodka boobaysa u soo dhaqaaqday dhankii dukaanka oo 50 mitir u jiray hoyga qaali in cabaara markii ay socodka socotay gaadhayna dukaankii oo ay ka soo gadatay kaarkii ay dib ugu soo laabatay wadadii ay soo qaaday balse qadaro waxay indhaheedu qabteen Yasmin oo ah qaali walaasheed ka yar oo qaar ka mid ah dhalinyarada xaafaddu ay si qaldan wax ugu sheegayaan iyo xaalka qaali sidoo maanta noqday waxaana si isu jiibis ah Yasmin looga dhaadhicinayay in walaasheed nin aan la garanaynin dartiis maanta oo dhami ay u barooraneysay hadalladaas iyo kuwa kale waxay si degdeg ah uga careysiiyeen Yasmin waxayna durbadiiba go'aansatay in ay hooyadeed la socodsiiso waxa ka dhacaya xaafadda iyadoo socodka boobaysa ayayna u dhaqaaqday halkii ay markii hore ka imaaday qadro oo dareentay in wiilashu Yasmin si xun ay wax uga dhaadhiciyeen ayaana u yeertay dhowr jeer balse xanaaqa saarnaa Yasmin marna ma aysan soo eegin qofka u yeerayo qadro ayaana isku dayday in ay socod ku gaarto balse way isaga hartay in cabaara markii ay u yeeraysay dibna aysan Yasmin u soo qooraansanaynin qadro waxay dib ugu soo laabatay qaali oo in cabaar ah dharsaneyd una sheegtay indhaheedu waxay soo arkeen Yasminna ay doontay hooyadeed oo suuqa jirta xaalkuna uu sii xumaanayo qaali ayaa soo booday kuna dhahday ii dhiib kaarka telefoonka aan ku shubtay intaysan hooyo imaan aan la hadlay Yusuf waan huba maanta waa la goosanayaa oo hooyo waa kulushahay aad ayaana uga baqnaa dhamaanteen dhanka kale xaalka Yusuf ayaa isna mid walwal iyo walbaar la darisa mar walba kuna hadaaqaya maya maahan macquul u malayn maayo in gacalisadaydu ay gudoomayso geeridayda gafayo talabada hadba geesu dhacayo sidii arganta la qaba goosaha isdaafsaday godobti adigata waa mid gooni ku taal ama gees lagu dhigi godobti adigata waa mid gooni ku taal ama gees lagu dhigi gacaladayda intaad goyso gami maayo wiilka leh haddaad garabka saartee gacaladayda intaad goyso
قمي ما يويل كاله حدد قرب كسارته أقدومي قريد ذيني هاي نفسي لما كنت دوي أقدومي